بسم الله magacayga soo sheegay Axmed waa Mahad Maxamed Cabdi waxaan ahay maamulaha guud ama managing director-ka shirkadda Houston Seafood anagu horta expert ma kunin sector-ka taas horta waa naga cududaar waxaan ka sheekeyn karnaa kaliya experience-geena iyo xaalihii aan kala kulannay intaan ku jirnay kalluumaysiga iyo caqabadaha hor yaalla iyo fursadaha uu leeyahay sector-kan guud ahaan baan ka hadli karnaa laakiin sarag nooga hawl naga experience badan baa fadhiya halka haddaan recognize gareeyo در علي إبراهيم يا موسى قال odayaal baa fadhiya marka taas waa cududaar anagu muddo waxaan ku jirnay 5 sano hadda sector-kan kalluumaysiga 5 sano waxaan ku bilownay markii hore saad ogsoontiin ganacsi wuxuu leeyahay wax la yiraahdo value chain buu leeyahay yarkii naga horeeyay tilmaamay from production ila market waa silsilad isku xiran qoladii naga horeysana way tilmaameen marka waxaan ka bilownay inaan anagu xooga saarno qaybta marketing sababtoo ah dhabarkaad ka jabaysaa haddii aad isku daydid dhammaan inaad adigu xoog wada saartid marketingka ku bilownay waxaan sameynay dalalka deriska ayaa inoo muuqday inay fursad ahaayeen waliba khaasatan dalkan Ethiopia la yiraahdo ayaan xoog saari jirnay oo ay ku nool yihiin shacab badan markaan daraasaad ku sameeyay waxaan ogaanay halkii bil wax isticmaali ka dhaa magaalada Addis Ababa 300 tan oo kalluuna meelaha loo keeno waxaa kamid ah ilaa Europe Norway baa loo keenaa productigooda ugu badan diyaaradaha iyagu waxay leeyihiin fleet of airlines tar badan ayay leeyihiin oo ka faa'iideystaan oo ku soo qaataan marka anoo halkaasaan xooga saarnay marketkan xooga saarnay marketkii markaan xooga saarnay caqabado badan ayaan la kulannay markaan u tagtid hoteeladii markaad u tagtid dadkii aad supply gareynaysid waxa lagu xirayaa laba shardi shardiga koowaad waxa weeyaan waxaagu joogto ma yihiin oo continuously ma u keeni kadhaa magaranaysaa waxaagu continuous ma u keeni kadhaa waa su'aasha ugu horeysa su'aasha labaadna waxa weeyaan arrintu hadda ka dhawaajiyay agaasimo quality baa la weydiinayaa waxaan aad soo saarnay saacad maad soo qabatay waa inaad diiwaan gelisay xilliga aad soo qabatay meeshaad ku process garaysay standardkaad soo marisay labada caqabadood ayaa naga soo ceyriyay runtii suuqii aan joognay aan islahayn waad camera dhalanaysaan taasi waxaan ugu kaliftay inaan marka ka soo daadegno value chain-ki meeshaan ka saarnayn marketingka aan u soo gudubno at least bal inaan processor aan noqono anagoo oranayna productionka waxa idin kaga filnaanaya kalluumaysatada hadda marka waxaan ku sugannahay xaalad aan ka sii guuri rabno processingki waan u guurayno productionki yani bil xaqiiqa waxaad maqlaysaan badana kalluun badan ayaa yaala meel Soomaaliya suuq ma haysano taasi ma jirto productionki badan way buuxdaa waa dihan tahay oo kalluun waa ka buuxa laakiin caqabadana haysta waxa weeyaan xirfadii oo halkan wax badan lagu soo celceliyay xirfadii lagu soo qabsan lahaa yani waxa weeyaan waxaan u maleynaa dalka kaliya oo pastigen uu ka fiican yahay presentigen adduunka hadda ku noolnahay waxyaalaha qaarkood dadkan la sheekaysta experience-ga kabtanada hadda jooga qaar xamar jooga qaar jooga Kismaayo qaar jooga Boosaaso waxay ku sheegayaan meeshay mareen standardku marayay Soomaaliya yani shirkadii dawladdu iska lahayd wax walba berigi hore dawladda iska lahayd oo private ku yaraa shifka ayaa la oran jiray Somali High Seas fishing company baa la oran jiray waxay geyn jireen Europe bay geyn jireen maanta anagu Brussels baan tagnay oo maba la yaqaanaba yani shirkaan tagnay Brussels teamkii tagay baan kamid ahaa Somali product maba ku jira liiska iyo in wax laga soo qaadi karo xataa waa laga leexanaya garanaysaa marka caqabadahaas waxa weeyaan waa caqabadaha sector-ka haysta marka hadaan ku laabto shirkadaydii production-kii marka caqabadaas ayaa naga qabsatay waxaan isku daynay ma fiicna qofku inuu markuu ganacsato yahay inuu wax walba isagu wada qaato gaadiid badan ayaan iibinay si aan mataqaana kalluumaysatada uga soo gadano kalluunka iyaguna shaqo abuur ugu noqoto hadda qaabkaan u shaqeyno weeyaan kalluumaysatada ayaan gaadiidka u dirnaa waxaana ka shaqeynaa laga bilaabo garaacad ilaa laas qoray badda u dhaxaysa ayaan ka shaqeynaa gaadiidkeena waxaan u dirnaa xeebaha dhow sida Eyl Xaafuun Hurdiya Bayla intaas ayaan u dirnaa ilaa Baargaal boosaasan hadda waxaan ka wadnaa warshad marka waxyaalaha caqabadaha ugu weyn ee haysta waxa weeyaan waa skill la'aan kalluumaysatadii oo aanan garanayn kalluunkii aad u dirsatay suuqii waxa laga yaabaa orderkaad haysatay inuu yahay inaad keentid 10 tan oo snapper inaad keentid oo guduud ah waliba colorka lagu sheegaya gramka intuu yahay lagu sheegay kiiladii adigana waxa lagu keenayaa kalluun 100 nooc lagu keenayaa kii soo baxaba waxa lagu keenayaa snapperkii grouperkii tabadintii toonadii kulli waa lagu wada keenay marka anaga caqabada nagala kulanto waxayaan business wise adduunyada waxa loo ganacsadaa markabku markuu tago shabakadiisu size bay leedahay mesh size bay leedahay noocu soo qabanay uu yaqaan inta kartoon soo qabanay uu yaqaan saasa loo ganacsadaa marka yani xagga productionka caqabad badan ayaa naga soo wajahday kalluumaysiga marka waxyaalahan ku xalinay waxa kamid ah inaan u fidina anagoo la kaashanayna hay'adaha kalluumaysata hay'adaha deeq bixiyayaasha sida geel oo kale inaan tababaro u qabanno
magaalada Eyl oo kale tuulada Eyl iyo Baargaal inaan tababarno kalluumaysato badan anagoo aysan ahayn yani shaqadeeni sababtoo anagu the private sector baan nahay faa'iido doon baan nahay laakiin waxa kugu kalifaya inaad dadka wax ku soo celisay waxa kugu kalifay danta kugu kalifaysa inaad xirfad u samaysid say kalluun fiican ku supply gareeyaan taasi waxa weyn caqabadaha la soo wajahay laakiin faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamid hadaan wax yar yar ka iraahdo halkii shaqo oo aan badda ka abuurno ama halkii shaqo ama halkii qof oo aan shaqaaleysino kalluumaysato ama kalluun soo dabta waxa ka dhalanaya 5 shaqo oo bariga ayaa ka dhalanaya staadigan aan uma sameeyay yani waxa sameeyay USAID baa sameysay wuuna yaala online ku jira halkii shaqo waxa ka dhalanaya 5 shaqo ka dhalanaysa marka xagga employmentiga waa sectorka ugu wanaagsan baan oran karayaa garamaya beeraha raggeedii baa jooga xagga shaqo abuurida waa sectorka ugu wanaagsan sababtoo ah markaad kalluunka soo qabatid wuxuu u baahnaan doonaa kii profile lahaa kii process garan kii qali lahaa kii miisaami lahaa kii ku package garan lahaa waxaas oo dhan waa shaqo weeyaan hal qofna ma sameyn karayo si loo shaqeeyo waxa weyn qofba miis buu fadhiyaa marka waa sectorada ugu fiican xagga opportunity-ga hadaan ka fiiriyo marka inahaas ku soo koobaya wixii su'aalaana waxa weyn insha Allah inuu guda galeynaa